بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي معنا wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena diinta iyo nolosha oo toddobaad kasta ka daawataan telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV barnaamijkeena maanta insha Allah wuxuu ku saabsanaan doonaa masaajidada iyo doorka ay ku leeyihiin inay bulshada dhisaan ama ay wanaajiyaan waxaana marti inoogu ah sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan Abu Axmed Cabdi oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa. Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu shariicada islaamka ku soo bartay dalka Sacuudiga sidoo kale waxa uu shariicada iyo qaanuunka ka qaaday jaamacadda al-Ulum wa Technology ee dalka Yemen ku taala waxa uu tafsiirka ka akhriyaa masaajidka Calimataan ee magaalada Hargeysa oo markii sagaalaad ama sanadkii 17aad uu wado waa maamulaha dugsiga sare ee Ilays. Sheekh Cabdiraxmaan waa xubin kamid ah culimada waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sheekh Cabdiraxmaan ku soo dhaw markii labaad barnaamijka barnaamijkan insha Allah saan tilmaanay. Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu ku saabsan yahay masaajidada iyo doorka ay ku leeyihiin bulshada inay dhisaan. Marka maxaynu oran karnaa masaajid waa maxay sidee buu iskugu xidhaa qofka noloshiisa adduunyada iyo noloshiisa aakhiro. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ugu horeyn waxaan salaamayaa bahda TV-ga iyo Sheekh Cabdullaahi oo kan runtiisna su'aalaha wala diyaara iyo guud ahaan bulshada daawanaysa. waxaa marka hore leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Calaykum assalaam. marka mawduuca uu imaado runtii waxa weeyaan masaajidadu waa masjid marka la leeyahay waa makaan sujuud Ilaahi subhanahu wa ta'ala asalkiisu makaan sujuud weey masjid macnaheedu waa taas weey waa goobta Ilaahi subhanahu wa ta'ala lagu sujuuday waa goobta Ilaahi subhanahu wa ta'ala wajiga dhulka loo dhigay waa makaanul cibaada asaas ahaan magaciisa bay maatimkaas ka muuqata ayaa ahmiyadiisa ka muuqata iyo hawshiisa ka muuqata masaajidu ahmiyad weyn bay leeyihiin ahmiyada weyn ay leeyihiin Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa Quraanka waa Ilaahi subhanahu wa ta'ala tilmaamay aayado far badan baa jiro ka waramaya masaajidka iyo cidda ku cibaadeysanaysa iyo qiimaha Ilaahi ku leeyahay waxa kamid ah Ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu Nabii Ibrahim alayhi salaam oo tilmaamay an dahira baytiya lit-taa'ifin wal-qaa'imiin wal-ruk'i sujuud oo Ilaahi subhanahu wa ta'ala tilmaamay inuu dhisay amar baa lagu siiyay Nabii Ibrahim alayhi salaam inay dhisaan isaga iyo Nabii Ismaaciil baytullahi al-haram أول بيت في الأرض سي الله القرآن كشيء سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بإله سبحانه وتعالى قوري إلهي اللي وقع بعد يستقوري يقهر لك اللي قلتم يا بيت الله الحرام وي هذا القرآن كإلهي كشيء نبي الله إبراهيم عليه السلام وحي إلهي كو أماني أو إلهي أمري إن أبيت كإلهي دسو ديبو دسو ظاهرية أو نظيفية أو كشقية أو ضد كتكنية أو ديار كريه. إلهي سبحانه وتعالى سقط المام يا قريه مساجد بين بيوت الله يهين. آيات قرآن إلهي سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قريها إلهي سبحانه وتعالى لك وكل يهي ومساجد إلهي إلهي سبحانه وتعالى أمرين كر لو قاضو ككرقات كسواد اسمه ونظافدي وإلالنتي وقدرنته يتعظيمك يوينين تلا قدرنا يو قد كقلوبته دل الدنيا يعني مارتي كشو إلهي مجعيسى لو حصى قلنا هرية قل ده مبضد مؤمنين هو الديارة إن إلهي عابدان وأن تجاري جناعسي يحاول كل مشغولين باكسوا جنب إلهي سبحانه وتعالى يلي ساس إلهي وأمانة إلهي سبحانه وتعالى سجى سن نسبي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد بيوت مساجد إلهي بس كله سبحانه وتعالى عد كلا إلهي ما تمو يعني عد كلا هويرنا كل عابدنا هكبرينا بإلهي سبحانه وتعالى وحكم ذا آيات قصار وري آيات إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تكو أمانية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم وأهل كذا اللي قبل رميه مساجد إيه وأهله قفكم بذكم مؤمنين تها يقع دسا يقع كتو كذا يقع عمره تعميرته معنوي أيضا اللي عابده إله اللي عابده يتحس قاعد إلى الدسم والله الديار يلا بضباء ومن أنت كتم هذا وحوي هو فرق بدنيه مساجدك وأهميته أقول لي هاي هدي أنا ساقهم مساجدك وحوي مؤسسات
laga maata dhaqaaqe islaamku ka unkamay tii ugu horreysay wey masaajidku waa xuduntii koowaad islaamku kasoo dhaqaaqo maxaa yeelay cilmiga iyo macrifada islaamka loo leeyahay meesha xudunta u ahay ee laga soo qaadanaya waa masaajidkii wey waxa weeye dacwada islaamka dadka la gaarsiinaya ee ilaahay diintiisa iyo kitaabkiisa iyo sunihiisa sunaha nabiga sala allahu alay wasalam waa manbacii uu kasoo burqanayay ishii uu kasoo burqanayay weeyaan masaajidku waa ishii ay dacwadda islaamka ee caalamka la doonaya inay gaadho gaal iyo islaamba halay kasoo baxaysa masaajidka ilahay beytka ilahay wey masaajidka hawadiisu aadaankii baa ka baxaya iyo dushiisa fi samaa'i mimbarkiisa cilmigii baa laga baranaya dhulkiisa waa lagu tukanaya waa lagu sujuudaya waa lagu fadhiisanaya waa ilahay baa lagu ictikaafaya masaajidku waxa weeye waa tarakiisada amba waa udubdhexaadka hirgelinta diinta ilahay la hirgelinaya subxaana watacaala dacwatan wa jihaadan wa tacliiman si dhinac kastoo laga eego hirgelinta ilahay diinta la hirgelinayo ilaa kalimat illahi marka lasoo duudubo qaacidadaasi meesha xudunta u ahay waa masaajidka ilahay subxaana watacaala masaajidku waxa wey waa mixwarka amba ay ku wareegeyso afkaarta iyo cawaadifta iyo muminiintu caadifadooda iyo quluubtooda halay ku xidhan tahay ay isugu imanayaan weye masaajidku waxa weeye waa uurka ay kasoo baxaan ee dhala culimada iyo aqoon-yahanka iyo khudabada iyo dadka muxuu ahay magaca ku yeesha islaamka taariikhiyan xagga fiqiga xagga caqiidada xagga sunaha xifdigiisa xagga muxuu ahay tafsiirka iyo muxuu ahay qur-aanka yani culumtiisa dhinac kastoo laga eego culumta iyo macrifada islaamka dadkii maarata yani xudunta u ahaa baa calanka u siday uurka ay ka dhasheen iyo meesha ay kasoo baxeen masaajiday ahaayeen ma ahayn jaamacada ma jirin masaajidku waxa weeyaan waa muasasa tacliimiya waa xarun tacliimeed oo dadka waaweyn iyo dadka yar labadaba si isku mid ah ay wax uga baranayaan waxa weeyaan dadka aynu sheegayna fuqahada ahina dhammaantoodba waxay ahaayeen caruur kasoo barbaartay masaajida ilahi subxaana watacaala kasoo xafiday qur-aanka kusoo xafiday mutuuntii iyo fiqiga aayaadkii ilahi subxana watacala iyo maanta yani culimada kula kulantay markaan soo ururino ibnu taymiya raximahullah baa wuxuu soo qadimaya sawir buu ka bixinaya rasuulku alayh salatu salaam masaajidka ahmiyadda uu siiyey sa wuxuu leeyahay nabigu alayh slat slam markii uu madiine yimi wuxuu aasaasay shaqa uu qabto waxa ugu horreeyay masaajid asaaso masjid quba masaajidka la yihahdo oo halkii nabiga lagu soo dhaweeyey sala allahu alay wasalam ee lagaga hortegey muxuu ahay yani dadka ay ku qaabileen halkii nabigu alay slam ka asaasay masaajid ina awala beytin wadaca linnaas aayadda qur-aanka ilahay leeyahy subxana watacaala lamasjidun usisa cala taqwa min awali yawmin xaqu an taquuma fiihi ba ilahi subxana watacala awala yawmin qadimta almadiina maalintii koowaad madiina aad timi halkii masaajidka laga asaasay baa xaq u le inaad istaagtaba ilahay leeyahy subxana wataala saa darteed nabigu sala allahu alay wasalam wiig walba intuu joogo haddaan hawl mashquula lahayn ismaanta isniintoo kale wuu u lugan jiray ilaa 3 mayl bay u jirtay masaajidka nabigiisu jiran iyo masjid quba nabigu asan wuu lugan jiray lug buu ku tegi jiray 2 ragcadood kusoo tukan jiray deedna ka iman jiray isagoo amarkaa ilaahay subxana watacala fulinaya marka kaasaa la asaasay masaajidku taqwada lagu asaasay oo kii labaad masjid nabawigana markaas ka labaad buu noqonayaa xilligii nabiga sala allahu alay wasalam waxaa hawlaha lagu qaban jiray 10 hawlood oo masaajidka lagu qaban jiray buu sheegay ibnu taymiya waxaa kamid ah asalaat salaada lagu tukanaya ko qiraa'ada qur-aanka ayaa laga baranayay taxfiid qur-aan buu ahaa mamaakin dikri buu ahaa oo xuska ilaahay subxaana watacaala ayaa maarata uu ahaa meel ilahay lagu xuso meel cilmiga laga barta ayuu ahaa oo cilmiga fiqiga iyo axkaamta laga barta ayuu ahaa oo maarata yani jaamicad ayuu ahaa wuxuu ahaa makaan tawciya oo runtii maanta mediaha ku jira ayuu ahaayo media kale iyo tacliin kale ma ilaha muxuu ahay warbaahin kale ma jirin meel dadka laga wacyi halkaas laga wacyi gelin dadka taasna qashaqo kale wuxuu ahaa xarun siyaasadeed buu ahaa oo meesha uu nabigu fadhiyo madaxweynaha ummaddu halkaas waa lagu iman jiray madaxtooyo ahaa markaa siyaasadda laga hago waxa uu ahaa meel muxuu ahaa yani ciidamada laga qorsheeyo oo wasaaradda difaac buu ahaa waxa uu ahaa meel muxuu ahaa yani laga cayimo amiirada iyo taliska cidda maamuleysa ciidanka cidda maarata hogaamineysa cidda duuleysa cidda yani qorshaha o dhan halkaas laga wada jiray waxa xataa laga qaban jiray halkaas laga magacaabi jiray dadka ummadda u talinaya rayidka ah hogaamiyaasha rayidka dadka u talinaya matalan beel oo kale hogaamiye beeleed amba hogaamiye muxuu ahaa yani magaalo amba deegaan halka masaajidka gudihiisa
ayuunbaa laga diri jiro barisaabka iyo maayarka iyo haddaynu dhahno muxuu ahaye yani dadka lamista waxa ahaa halkaasaa laga diri jiray oo meel laga wararayahay ta ugu dambeysa waxa weeyaan waxay ahayd meel marka wax dhacaan laga xaliyo la isugu yimaado oo mar kastoo arrin dhaco halkaas dadka maartay xaya cala salaa xaya cala jihaad waa loo baaqashay waa lasoo yaaci jiray halkaasaa la isugu iman jiray nabigu sal lla ly slam dadka diintooda iyo dunyadoodaba uga sheekeyn jiray kala hadli jiray marka masaajidku ahmiyaddaa badan buu leeyahay aad baan runtii yahay maaragtay in lagu soo noqdo markaan soo ururino cabdillahi waka waxa weeye ahmiyadda masaajidku leeyahay waxaa ka mid ah waa weel amba waa dheri muslimiintu lagu shiilo oo lagu diyaariyo oo nufuustan kala duwan ee muxuu ahaye yani qaar ananiyadii iyo isla-weynaanta ku jirto ee qaar muxuu ahaye qof maalkiisa la dhacsan yahay mid maskaxiisa la dhacsan yahay mid reerkooda maarata ku faanayo mid muxuu ahaye wax kale ku faanayo waa meesha keliya kulmisa ee dabeedna maarata shucuur iyo dareen dhalisa ah inay isku mid yihiin mid walba wax gaar ha haysto laakiin addooma ilahay inay yihiin ay siman yihiin waa kay isugu yimaadaan kii ugu qanisanaa iyo kii ugu faqirsanaa ilahay dhulka madaxa wada dhigaya kii madaxweynaha iyo kii madaxweynaha loo ahaa kii muxuu ahaa yani aqoon-yahanka iyo kii jaahilka ahaa waa goobta qura isugu imanayaan ee ay siman yihiin ee mar wada rukuucayaan mar wada sujuudayaan mar wada salaamadsanayaan amiir qura oo imaam la yidhahdaa oo hogaaminayo marka masaajidku runtii ahmiyad weyn buu mujtamaca muslimka u leeyahay xor uga dhexaada jazaak allah khayr sheekh cabdiraxmaan aad baad umahadsantahay markaynu ka nimaadno ahmiyadda ballaaran eed soo jeedisay eed tilmaantay in bulshadu timaado goobaha barakeysan aynu masaajidka waa goob ilaahay loogu cibaadaystaa tiri oo meeshii ilaahay lagu caabudayay madaxa dhulka loo dhigay marka goobaha barakeysan inay dadku isugu yimaadaan maxaynu odhan karnaa saameyn intee leeg bay ku yeelanaysaa qofku inuu caadaysto inuu masaajidka ku noqnoqdo iyo guud ahaan bulshada markaa meel ku dhaqana muslimka ahba runtii waa su-aal muhiim waxa weeyaan masaajidka waxaa loo sameeyey inuu sa aan sheegaya noqdo xarun udhexaysa muslimiinta oo la isugu yimaado oo marka ugu horeysa lagu muujiyo addoonnimada ilaahay subxaana watacaala in ilaahay addooma looda yahay ilaahay subxana watacaala loo siman yahay ilaahayna yahay subxana watacaala ka keliyahay markaa kibriyaaga iyo weynaanta iyo maarata yani mudnaanta iskale dhammaan khalqiguna addooma yihiin halka lagu muujinaya ficiliyan loogu muujinaya masaajidka ilahay subxana watacaala wey muslimiinta waxaa ku waajiba oo ilahay ku waajibiyey salaad 5 salaadood ayaa habeenkii maalinta ilahay ku waajibiyey 5taas salaadood waxaa ilahay waajibiyey subxaana watacaala in jamc lagu tukado waxaa masaajida loo sameeyey in la isugu yimaado haddii aan jamca la isugu imaanayn jamc aan muhiimad lahayn masaajidba lama sameeyeen mid walba xolaha ku qabsato iskaga tuko gurigaaga ku tuko dukaankaaga ku tuko la laakiin masaajidka jaamica waxaa loo sameeyey in marka salaada laga aadaamo ee aadaanka halkaa laga maqlo waa loo yeeray dadka haya cala asalaa haya cala asalaa haya cala alfalax haya cala alfalax baa laleeyahy macnaheed waa salaada u kaalaya wey marka qof kasta oo muslim markuu aadaankaa maqlo waa inuu yimaadaa nabigu aad buu adkeeyey sala allahu alayh wasalam fuqahada qaarkood wujuub bay ku tilmaamaan marka ay nusuustaa raacaan culamada qaarkoodna sunna mu-akada yidhahdaa fuqahada markaan u noqono laakiin marka aan nagu noqdo nusuusta axaadiista ah rasuulku alayhi salaam aad iyo aad buu adkeeyey oo qofka aadaanka maqlay inuu yimaado kii indhoolaha ahaa cid soo kaxaysa ma haysto saq dhexe habeenkii nabigu alay slam ma maqashay aadaanka kaali masaajidka mar waa kii nabigu sal ly slam lahaa haddii maarata yani waxaan ku hamiyey in aan dadka masaajidkana hala aqiimo salaada oo la aqiimoon qof ilaa tuki oo anigu intaan ciidanka haysto oon xaabo soo gurto niman guryahooda ku tukanayo guryaha ku gubo ayuu nabigu alay slam waxaad arkaysaa markaa dareenka nabiga ku jiray dadka ka hadhay masaajidkii jamci nabigu alay slam aad iyo aad uga xumaa marka masaajidku cabdillahi waxa weeyaan imaatinkiisu iyo xuduuru jamaacaad raad weyn horta marka hore waa darajadaasay leedahayo waxay qofka muslimka ah ee riba ragga khaasatan aadaanka markay maqlaan haddaan cudurdaar adag aanu markaasi yani aanu ku fadhiyin waa cudurdaaraa jira cadaalo jamaaca la yidhahdo kuwa haddii aanu lahayn amba xanuunsanayo amba meel maarata yani khatara u ilaalinayo amba waxyaala caynkaasoo cudurdaar wey jira haddii aan waxaasi haysan masaajidka inuu tagaa waxa weeyaan wujuub amba waa sunna mu-akada labada midhaan bay culimadu sheegeen marka la tago darajuu ka helaya marka koowaad oo salaada ku tukan lahaa gurigiisa iyo salaada ku tukanayo masaajidka 720 daraja udhexeeya nabigu alay slam waxaanu doonaynaa salaada iyo cibaadada ka doonaynaana waa darajaad iyo xasanaad wey nabigu caleyh wuxuu tilmaamay tallaabada soo qaadaaba marku tallaabo qaadeen dembi laga daadinayo tallaabada kale marku qaadana in ajar loo kordhinayo waa xasanaad kale wey waxaa nabigu sheegay sala allahu alay waslam intuu masaajidkaa ku jiro
jamaca uu istidaar sugayo in loo qorayo malaa'igtu ay u qorayso qof salaad ku jira inuu yahay intaa uu sugaya salaada masaajidka dhex fadhiya masaajidka dhex fadhiya waxaa loo qoraya inuu salaad ku jiro malaa'igta ilaahay baa u ducaynaysaa intuu halkaas sii fadhiyo allahuma kfir lahu allahuma arxamhu ayuu leeyahay ilaahu dambi dhaaf ilaahu naxariiso intaasoo maata xasanaada horta wuu ka helaya marka ugu horeysa ducada malaa'igtuna waa ducada mustajaab malaa'igtu mustajaabo wey markaa waa la aqbalay taas waa mid oo qofka intuu gurigiisa maarata yani salaadii oo qarbaa ku tukanayo waa inuu beytka ilaahay yimaada isagoo soo weysaystay isagoo khushuucsan isagoo istiqfaarsanaya isagoo shadaga iska naaray waa inuu khushuuc ku tukadaayo ummadda la tukadaayo yani shacayradii iyo maarata yani hal islaamka muujiya higilkaa la siimanaya lafteedu waa islaamkii oo la muujinaya wey waxaa kaloo maarata laga qaadanaya raadka kule kamid ah qofka muslimka ah ee laazima jamaca wuxuu baranayaa howlkarnimo ayuu yeelanaya oo qof muxuu ahaay on time ahoo waktiga ilaashanayo oo aadaanka ku xidhan oo tegaya oo soo noqonaya oo yani firfircoon buu noqonaya oo hataa hawlihiisii kalena saameyn bay ku yeelanaysaa oo hadduu salaada ilaaliyo xaqiiq waxaa ina hawl kalena aanay ka baxsanayn hadduu shanta waqti ilaaliyo qofkaasi wuxuu ku qabatimaya oo ku raboobaya muxuu ahaay yani qof timeka ilaaliya hadduu qofka timeka ilaaliyana waa faa'iida koowaad wey oo noloshii kalena maarata ku najaxaya waxa weeyaan waxa uu ka dareemaya aba laga soo qaadanaya oo raadka uu leeyahay jamcu kamid ah walaalnimada islaamka waxaa laga yaaba intaasoo qof inaad isku barataan masaajidka waxa weeye ducadaad ka qeyb gelaysaayo markan muxuu ahaa yani salaamo naqsiga oo keliya assalaamu calaykum waraxmatullah qofka ku leeyahy waxaa la wixii xagga xigu salaamaya xaggan wixii ka xigu salaamaya waa duco adigaa lagu ducaynaya naxariistii ilahay maanta lagu ducaynaya waxaa kamid a muxuu ahaa yani taxiyaadka dhexdiisa waxaa ku jira ducaa ku jirta wacalaa cibaadillahi saalixiin baa ku jirta marka waxa weeyaan walaalnimadii baa adkaanaysa iimaankii baa adkaanaya labada qof isku dhinac tukanaya laba ragcad keliya oo muxuu ahay muslimiinta isku dhinac tukadeen dareenka iyo shucuurka ay bixinayso iyo ulfada iyo midnimada ay sameynayso 100 muxaadaro iyo 100 daris iyo 100 haddii maata hawlada sameeyo ragcaddaa yar intay sameynayso ee raadka ah ma sameyn karto waayo waa practice wey waxa wey practical baa loo sameeyey waa walaalnimo midaysan waa la wada sujuuday waa la wada rukuucay waa la wada socday hal ragcada qura aad la tukato safka muslimiinta shucuurka iyo dareenka ay kugu beerayso haddii 100 muxaadaro lagu akriyo kugu beeri mayso marka runtii ahmiyadaas ayaa uu leeyahay masaajidka maanta xuduurkiisa la xaadira uu leeyahay jazaak allah khayr bulshaduna guud ahaan taasun bay kala qayb galaysaa taasay kala qayb galaysaa marka dee mujtamaca kaas ku xidhiidhayaaba mujtamaca baa isugu imanaya waa la isaga warhelayaa qofkii xanuunsanaya laga warhelayaa nabigu alayhi salaam marka asxaabta waayo qaarkood kasoo qayb gala waan hebel bey buu odhan jiray wasaa laga soo warheshay isagoo xamba xanuunsanaya ama safar amba hawl ku maqan amba hawle haysato saa loo caawin jiray marka yani waa meeshii mujtamac ka xidhiidhaya wey marka mujtamac u leedahay faa'iida mujtamac u leedahay waa isku xidhka waa walaalnimada waxa weeye muxuu ahaa isu ducaynta waa isbarashada waa waxaasoo dhan baa maarata faa'iida jazaak allah khayr sheekh cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay markaynu hoos ugu dhaadhacno masaajidka hawlo fara badan baa ka socda aad iyo aad runtii waa xudunta islaamku maanta ka dhisan yahay weligiiba ka dhisnaa ka dhisnaa waa masaajid wey masaajidka wey jazaak allah khayr marka hawlaha ka socda waxaa kamid a in dadku in jimcihii mar laysku yimaado oo khudbad jimce la akriyo xataa waxaa laga yaabaa dad waktigan haynu nool nahay dad aan salaadaha masaajidada ku tukanay maalinta jimcaha ay masaajidada tagaan marka khudbadaasi iyadu raad intee leeg bay ku leedahay bulshada inay isku hayso bulshada inay midayso bulshada inay dhinac wada jeediso maasha allah howlaha maarata ugu waaweyn ee masaajida ay qabtaan amba ilaahay subxana wa taala iyo nabigiisa u sharciyeeyeen sala allahu alayh wasalam ayay kamid tahay khudbadu waxaa ilaahay subxana taala nagu waajibiyey in wiigii maalin kamid ah jumcaha maalinta jumcaha oo khayru yawmin dalacat fihi shamsu yawm aljumca nabiga alay slam yihi maalin qorxi soo baxda maalinta ugu khayrka badan weeye jimco maaha in wiigii maalin kamid maahe waa maalin si gaara ilahay noogu dooray subxaana wa tacaala fiihi khuliqa aadam wa fiihi udkhila aljanna wa fiihi ukhrija minha walaa taquumu saacatu ila fi yawm aljumca nabiga alay slam alayhi salaatu waa maalin cajiiba wey waa maalinta nabiy llahi aad la abuuray abuurkiisaba la abuuray waa maalintii maarata jannada la geliyey waa isla haddana maalinta kasoo baxay jannada lafteeda waa maalinta qiyaamaba dhacaya nabiga alay slam marka waa maalin muhiim ah oo ilaahay subxana wa taala maarata yani khayru yawm ka dhigay qorxi soo baxdo waana maalin saacatulijaaba ay ku dhex jirto marka waxaa diinteena inagu waajibisay in qofka muslimkii kasoo qeyb galo jumcaha oo waajib khaasa wey daaruljumca salaadii duhur waxaa loo qeybiyey 2 ragcadood iyo khudba 2 khudbadood 4 ragcadood baa la kala qeybiyey 2 khudbadood waxay ku jiraan halkii 2 ragcadood
marka laba khudbad inta la akhriyo in laba ragcadood la tukado ayaa maalintaas waa cibaado khaasa marka iyadoo khaasa wey. marka imaatinka la doonaya inay dadku hore u yimaadaan, dadku waa inay hore u yimaadaan. nabigu sal alla alay slam wuxuu tilmaamay qofka saacadda koowaad yimaada inuu la maartay mid yahay ama la ajar yahay qof neef geela intuu qalay masaakiinta u qaybiyey inuu la ajar yahay. saacadda labaad qofka yimaadaana inuu la mid yahay qof neef geel neef lo intuu qalay qaybiyey dadka u qaybiyey. ka saacad saddexaad yimaadaana neef maartay weyn oo ariga kugu waaweyn intuu gowracay deedna ummadda u qaybiyey. saacadda afraad degaagid baa nabiga ku sheegay sal alla alay slam inuu sadaqadaysto, sadaqadaysta buu ka dhigan yahay. saacadda shanaad baa tayna waa nimaadnaan mal dhigaa dadka nimanka yimaadaane beed waa xabad beeda weeye. marka haddayna beedka waa inaan ka habsaamin qudhiisa. marka maanta waa marka masaajidku imaamku soo ugu gelayo dambeysa marka imaamku soo taago ee uu soo taago muxuu memberka imaamku soo taago malaa'igtii wax kala qoraysay iyana way soo fariistaan waxay joojinayaan marka dadku qoraalka waa la joojinaya marka marka haddaad xilligaa masaajid ka dambeeyay marka ma qorin ma qornid bay ka dhigataa ma qorin bay ka dhigataa. marka arrintii waxa weeyaan in saa loo soo kala horeeya ka dhigta. laakiin maanta waxaad moodaa jimcaha waxaa loo haystaa maalin la iska nasto, waa la iska seexdaa ama waa la iska baashaalaa. waxaa la iska yimaadaa maanta marka imaamka la maqlay inuu hadlayo, khadiibkii hadlaya la yidhahdaa markaasaa la soo dhaqaaqa. marka masaajidda dad eegto intaan khadiibku soo fuulin way bannaan tahay. intaa yar khudbada socotaa lasoo buuxinaya oo salaadda ba laga soo gaaraa oo salaadda soo tukan wey. laakiin muhiimaddu waa maxay? waa in maalintaasi khayrka aad shaqaysata wey. waa saacadda koowaad timaadaa, haddii kuu suuragta labaad ama ta saddexaad timaadaa maanta kuu suuragelayso. marka masaajiddu khudbaddu qiimahaasay horta leedahay marka hore. marka labaad ahdaafta iyo ujeedooyinka laga leeyahay khudbada jumcaha waxaa ka mid a kow waa wacdi iyo tadkiir ilaahay subxana wa tacala la xasuusinayo. oo qofkan wiig buu shaqaynayay, adduunyadii buu dhex galay, wuu mashquulay maata yani waxbaa. marka maalintaasi waa maalin la doonaya in laga maydho, qalbigiisa la sifeeyo, oo ilaahay la xasuusiyo subxaana wa tacaala, oo aakhiro la xasuusiyo, oo adduunyada la xasuusiyo, oo maarata yani waxay tahay loo sheego. oo markaa waa maalin qofka lagu talagalay siduu jirkiisa iyo dharkiisa u nadiifinayo in qalbigiisa loo nadiifiyo. markaasi maarata shuxnad cusub isagoo dib loo jaajgareeyay oo maarata haddana iimaankiisi buuxo in wiigii labaadna waa jaha la doonaya. marka runtii waa tadkiir iyo wacdi, waa ahdaafta ujeedooyinka ay leedahay ka mid tahay. waana inay mar walba ku jirtaa waa khudbadda sideedaba, xataa mawduuc kasta ka hadlayso alwacdi wa tadkiir waa inuu ku jira wey. oo maarata waa xudunta koowaad khudbadda ay leedahay oo ilaahay ka cabsada mar kasta waa inay ku jirtaa. ta labaad ee looga jeedo ujeedada laga leeyahay waxa weeye tafqiih almuslimiin biamri diini, in dadka lagu fahamsiiyo umuuraha diinta iyo xaqaa'iqa diinta. oo matalan amba lagala hadlo diintan xaqnimadeeda iyo aayaadka iyo adilada kusoo arooray, amba lagala hadlo maarata masale fiqiya ka qaldana loo saxo oo maarata loo hagaajiyo, amba caqiida lagala hadlo caqiida loo saxo, amba akhlaaqda loo saxo, tacaaliimta diinta faraha badan leh in kolba wax loo saxo. marka waxa weeye waa tafqiih almuslimiin iyadoo mawaasim oo kale loo kala qaybinayo ficlan ha waxa weeye markaa in kitaabkii ilahi iyo sunnihii rasuulka caqiidadii iyo akhlaaqdii iyo maarata cibaadaadkii iyo wixii dhan la baro oo qofkan qof diintiisa aqoon u leh inuu noqdo. hadduu si kale u haleeli waayo wiigii maalinta jumca inuu daris qaato oo markaa intuu ilahay ku caabudaya horta halkaa inuu ka barto. markaa ujeedooyinka laga leeyahay ayay ka mid tahay. waxaa ka mid ujeedooyinka laga leeyahay khudbadaha mafaahiimta qaldanta had iyo jeer in laga saxo. yani dadku qofku faham qaldan buu ka qaadan karaa diintiisa, ama shay maarata iyo jira ayuu si qaldan u turjumi karaa. meesha laga saxo ee laga toosiyaa waa mimbarka iyo masaajidka weeye. nabigu sala allahu alay wasalam marka yani oo arka asxaabta iyagoo qalad ku dhacay mimbar ku fuuli jiray. rasuulillah maa baalu qowmi, dad caynkaa sameynayo saas yeelay saa yeelay maxay yihiin? waxaa ka mid ahaa saddexdii nin maarata yani intay iska qiiroodeen yidhi maarata nabiga ilaahay aynu maarata cibaadadiisa isku dhereerina. markaa intay nabiga ilaahay u kuurgaleen marka isagii maarata yani quursadeen cibaadadiisi, nimana qaad u qiiraysan bay ahayn. ayay yidhahan bal maa gurigoo cibaado qarsoon baa jirto dumarka wax soo weydiina yidhah. dumarkii nabiga utagay wax soo weydiiyeen, tiina way ku qanci waayeen. deedna way tashay waxay maxaa inoo arna nabigiisa hore kadib waa la dhaaf. isaga wixii uu la yimaada waa shukri naqun, inaga dembigeena baa inoo buuxiyay aan shaqaysana la yidhi. dabeedna waa kii go-aanka kala qaatee saddexdii maarata go-aan bay qaateen. nina uu yihi weligeyba anigu guursan maayo waan haajirayaa guurkeyga iyo dhaqashadaba oo ilahay baana go-aya oo suufiyadii wey buuraha gelayaa buri. midna wuxuu yihi muxuu ahaay yani anigu habeen o dhan baan taagnaanaya, haddii gabalba dhaco salaatulil baan u taagnahay hurdi ma jirto. midna wuxuu yihi anigu maalin o dhan waan soomananaya, weligeyba waan soomananaya. nabiga markii loo sheegay waa mafaahim qaldantay wey. nimankan may yani mubdahaan may qaldameen
oo niman doonaya inay diinta ilaahay weliba sii badiyaan ayay haayeen ayay ahaayeen laakiin fahamkii baa ka qaldamay. fahamku waa maxay? diinteenu ma aha waxaad adigu ikhtiraci karayso. diintan waa tawqiif wey, sunnatu nabi sal alla alay slam ka hataa. marka xuduuddii nabigu u xadeeyey ee awoodda bani aadamka ku salaysnay, laa yukalifu llahu nafsan illaa wuscaha, ay ku salaysantaha diinteena. takliiftii bani aadamka ee maarata ilaahay subxana xikamkiisa uu kusoo dejiyey bay iyagu dhaafeen. naftooda waxay ku kalifeen waxaana qaadi karin, hadhowna aanay qaban karaynin, iminkana ay ballan qaadayaan. nabigu markaa mafhuumkaa qaldamay wuxuu ku saxay mimbarka khudbadda ku saxay nabiga sal alla alay slam. marka ujeedooyinka laga leeyahay kamid tahay waxaa kamid a ujeedooyinka laga leeyahay in nolosha iyo waaqac iyo diinta la isku xidho, oo aanay noqon diinteenu kitaab halkaas ka yaala iyo noloshii oo haddana mawjad kale maraysa. in khadiibku isku xidho diinta iyo nolosha, oo maalinba waxa taagan ka hadlo. maalin ganacsiga ka hadlo toosiyo, maalin siyaasadda ka hadlo toosiyo, maalin muxuu ahaa yani akhlaaqiyaadka dhanka ka hadlo, maalin dhalinyarada ka hadlo, maalin yani macnaa waxa weya noloshii inay diintuna noloshii tahay waa halka laga fahamsiinaya ee laga jeedanaya ummadda laga jahaynaya. waxa weeyaan waa mimbarka, waa mimbarka waxa hoos fadhiya. waxa hoos fadhiya kii mutacalimka ahaa, kii jaahilka ahaa, kii yaraa, kii weynaa, kii siyaasiga ahaa, kii muxuu ahaa mujtamaca caadiga ganacsadaha ahaa, waxa la yaala wixii oo dhan baa fadhiya oo isugu imanaya. marka intuba waa inay ka helaan manbac ay ka cabaan oo diintoodii ka fahmaan, mid walbana takhasuskiisa uu kaga faa'idaysto. marka dowrka ay leedahay iyo faa'iidada u leedahay bulshada waxyaalahaas oo dhan baa ka mid a. ugu dambeyn waxa weeye saanu sheegnay mar walba waxaa lagu adkeynayaa walaalnimada islaamka iyo midnimada ummadda. yani waa in la ilaaliya midnimada ummadda. khudbadda waa in la ilaalisaa, khudbadda lagu ilaaliyaa oo loo sheegaa mar kasta bulshada inay tahay bulsho yani midnimadeedu ay tahay iimaanka iyo walaalnimada isku xidhan tahay. waxaa kamid a muxuu ahaa yani in dadka had iyo jeer maarata yani la xamaasad geliyo dadku diintooda si qiiro leh ay u haystaan oo si tacbaan oo caajis oo shidaan ka faa'idaysto aanay diintu aanay noqonin. saa darteedna waxaa muhiim ah in muxuu ahaa laba arrimood ayaa muhiimaho. mid waxa weeyaan in khudbadaha laga ilaaliyo wax dadka maarata dhiba, ama dadka kala kaxeeya, ama dadka khilaaf ku rida, ama dadka muxuu ahaa yani ahmiyadaha iyo ahdaafta khudbadda ay leedahay wixii ka hor imanaya way khudbadda lafteeda laga ilaaliyo wey. si taa loo helana waa in muxuu ahaa yani culimada iyo maarata wasaaradda diinta oo kale iyo ciddii hawshaas xilkaa lihi waa inay diyaariyaan mawduucyo khudbadda maarata yani wax jiheeyo oo maarata khudbada cusub lagu jiheeyo. waa inay dowraad iyo maarata tababar sameeyaan oo la jiheeyo maarata dadka khudbadaha akhriya si ummadda looga faa'iideeyo. jazaak allah khayr sheekh cabdiraxmaan. su-aashiina ugu dambeysa barnaamijka inkastuu mawduucan yahay mawduuc ballaaran oo in mid loo dul istaago ay habboon tahay. waxaa kaloo taa barbar socda khudbadda markaynu ka nimaadno duruus masaajidada ka baxda sida imika 17 sano aad masaajidka aad cashirka akhriyeysay oo kale iyo muxaadaraad joogta ah. marka kuwa laftoodu iyagu doorkoodu muxuu yahay iyagu? runtii waxa weeye waa ahmiyadda awaan soo sheegno. masaajidku de waa madrasad weeye, waa jaamicad wax laga barto. waanu ahaa xilligii nabiga sala allahu alayh wasalam, xilligii saxaabada, quruntii hore ee maarata fadalkeeda wanaagsanayd. yani masaajidku wuxuu ahaa meesha keliyahe wax laga barto. duruusta masaajidda markaa laga akriyaya ahmiyadda gaarkii ay leeyihin waxa weeye masaajidka maadaama yahay meel goorba la imanayo, in dadka imanaya ay ka helaan muxuu ahaa yani duruus joogto ah oo markaa laba sidood looga faa'idaysto. oo qofkii doonaya inuu waxbarasho rasmiya helo, meeluu ku taxan yahay waxbarasho rasmiya ka qaatay noqonaysayo, isaguna hadhow qof sii faa'iideeyey. waxaa kaloo looga faa'idaysanayaa qofka iska caabirka ah ee isagoo aan soo noqnoqonayn maalin ba laba ama saddex kula tukaday, inuu ka qaato muxuu halkaa uu kaga soo beegmay, isaguna ka cabo la safro. matalan masaajidda qofka musalliga ah ee tukanaya masaajidka caadaysta wuxuu la kulmayaa cibaadadii buu kala kulmayaa, tacliintii buu kala kulmayaa, qur-aankii buu ka baranayaa, imaamka akhriyaya markaan hada si kaloo baranin. muddo kooban intaanay kasoo wareegin qofka caadaysta masaajidku wuxuu ka qaadanaya masjidka kitaabkii qur-aanka ahaa iyo xadiiska nabiga sala allahu alay wasalam, arrimihii adduunyadiisa ku saabsanaa, kuwii aakhirada kusaabsan labadaba. waa marka qofku iska yahay qofka caabirka ah ee aan isagu ujeedin wax barto, iska soo noqon. lakin marku soo tukado xalqad marka la fadhiisto inuu yar fadhiistaa laga yaaba isaga dhegeysto laa marka sii qaato waa faa'iido yar buu sii qaadanaya. ka isagu doonaya inuu barto arday rasmiya uu noqdo
xalaqaadka ku xidhmo si uu ka u faa'iido badan weeye duruusta ay faa'iideynayso marka kaasaan ugu talagalay in wax ka barto xilligii matalan oo kale hore ee jaamacadahan iyo madaariska aan jiri jirin meesha culimadan imika aynu higsano imaam shaafici imaam axmed bin xambal imaam abu xaniifa imaam malik leeyahay iyo aimada kale faraha badan leh meesha ay kasoo baxeen wax ka bartay xalaqaadka masaajidka duruusta masaajidka akhriya xalaqada masaajidka ka socota ayay fadhiisteen halkiiba ka dhargeen halkiiba inagana nooga faa'iideeyey marka xalqada masaajidka ka socotay duruus ka socota waxay faa'iido leedahay waxa weeye arday baa wax ka baranaya ardaygaasi berita isaguna sheekh meel fadhiista ayuu noqonaya marka masaajidka waxaa laga yaaba inuu 100 masaajid sameeyo xalqada kaliya socotay 100 xalqadood masaajidka kala socotay inay sameyso ayaa laga yaabaa anaga lafteedu runtii inteeda maanta wax akhrida xalqada masaajid baan ka soo baranay waxaan akhriyno jaamacadu way dambeeyeen laakiin marka hore runtii waxaan ku horeeyay masaajidda ahayd marka waxa weeye runtii waxay leedahay sifo gaar ah leedahay matalan ninka dhageysta wax ka qaata qoyskiisa kula noqonaya wasuu faa'iideynaya qofkii doo faa'iideyn karay kii dhageysta saaxiibkii wala soo qaadayo halkii wax laga akhriyay buu sheegaya uu faafinaya kii muxuu ahaa yani musaafirka ah matalan dal kale ka yimi ama magaalo kale ka yimi markuu dhowr habeen iska dhageysto halkiisa ku noqdo wixii uu maqlay buu geenaya marka waxa weeye waa nuqda saakhinaynaho yani waxa weeye waa meel manbac biyo aho harab biyo aho fadhida weeye laga cabayo marka qof walba inta ka darsado ayuu leeyahay marka duruusta masaajidda ka socota wata ama muxaadaraadku way ka yar duwan yihiin iyagu waxa weeye waa mawduuc la soo diyaariyey oo lagu talagalay in muxuu ahaa yani mafhuum gaar ah lagu fidiyo dadku ay ka qaataan mawduuc matalan muddo dheer qaadan lahaa in lasoo ururiyo oo dadku markaas yani saacad gudahood ay faham ka qaadan karaan mulakhas oo diintooda ku fahmi karaan baa looga jeedaa iyadoo runtii markaa si loo eego duruustu waqti dheer bay u baahantay laakiin muxaadaradu way kasii faa'iido badan tahay waayo mawduuc juhdi la bixiyey oo lasoo ururiyey oo la doonayay in maat yani lagu soo koobo kitaab dhan oo dhigan lahayd hal muxaadaro lagu soo koobo marka iyadoo faa'iido gaar ah leedahay dadka waxaan lahaa mujtamaca wixii aan duruusta la socon karayni muxaadaraadka iyo ka maqnaan jazaak allah khayr sheekh cabdiraxmaan aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii mawduucan iyo sheekhu sida uu bulshada u saameeyo insha allah haddii aan chance kala helno insha allahu tacaala waqtiyo kale ayaa insha allahu tacaala aynu duubi doonaa daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni diinta iyo nolosha aynu ka faa'iidaysanay sheekheena sheekh cabdiraxmaan aw axmed cabdi oo runtii si faahfaahsan noogu qaadaa dhigay ahmiyadda uu masaajidku leeyahay tan iyo kulanti dambe aniga iyo sheekh cabdiraxmaan iyo xasan waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu